سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما داودياشا قيمها iyo sharafta mudanow caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo xilli walba idin tahayba waqtigaha idin wacnaado waayahana idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leh maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina jimca kariim ayaan idin leeyahay dhammaantiinba caalamka daafiisa meel walba aad ka joogtaan waxaana ilaahay ka rajaynayaa in ay maalinta jimcaha idinku soo gashay waqti qurux badan oo aad ku raaxaysataan inta dib inooga soo biirtay aad baan ugu mahadcelinaynaa inta hore inoo joogtayna waa ay mahadsan yihiin sidoo kale inta soo socotana waynu soo dhaweyn doonaa oo soo dhawaada ayaan idin leenahay haddii ilaahay idmo maanta waxaan inoo wadaa runtii magaalada Hargeysa sida dhawaanba laga sugayo waxa ka dhici doona May oo ah maalin happy day oo ah ama maalin qaali oo ah Somaliland sidaas darteed waxa isugu yimid fanaaniin waaweyn oo ay ka mid yihiin Hodan Cabdiraxmaan oo runtii aanu arkeyna xitaa heeso ay ugu tala gashay ama ay u qaaday Mayga ayaa ku sugan fanaanada waxa ay kulmeen ama waqti yaab la ay qaateen oo si yar oo cajiib ay u wada qaateen fanaanadii weyneed ee Yurub Genyo oo ah boqoradii codka xidigahana ay bari isagala tirsanayeen intaasi kadib waxaan rabaa muuqaal ayaan idinkaga hayaa oo ballan qaadyo iyo waxyaabo kale dhaxmari doono labada fanaan ama ujeedo kale oo weyn ay ku hoos jirto oo aan idin la wadaagi doono haddii Ilaahay idmo waxaan rabaa horta marka ugu horeyso in aan muuqaalka idin soo fasaxo oo aan idin hor keeno aan wada daawano kadibna wixii aan ka dhihi karno hal iyo laba xagga dambaan u dhigano oo aan ka dhahno haddii Ilaahay idmo bal marka ugu horeyso muuqaalka daawasho wacan وامينو ويوري محمد عبد الجينيو ووبو halkan maxay qaadi kara waxa loo tahay baqaadi kara walaal ma walaal ma qoyrato qaadi kartaa sagootintii walaalkay خالد عبد يوسف مينو ريتر ملو waxaan dilenahay de yurubno soo tagaya hadiya annago qaxayna waan idin imanayna ayagii wadana walaayagii wadahayagii si suga boqoradii fanka gacantiisa ugu hayay wad maqlaysaa هاي ويدك يوري محمد عبد الكينيو ونكا وعداي سوق والله waxba laga wada karatan bada waxba laga wada karo walaalkay miino Hodan Cabdiraxmaan Ismaan leedahay walaal maanta waxaan joognaa gurigii kooxdii weyneed la weyn waaxda xidiga geeska waxa jooga nin weyn oo deebaan oo sagaran kartaan oo laga muuqda halka waxaan ugu sameeyay sagootin qurux badan ilaa iyo saaradayda magaalada isaga u daaran tahay inuu dal magaaliye maxaa ku garan kartaa inuu meel ka ciyaari jiro ay ma maqna raajood Usmaan walaal salaam ya asxaabtada salaam ya ku salaamaya laakiin jarmal u sheeganayno inaad jarmalay waan soo socdaa is diyaariya way soo socotaa Hodan aniga Umar aniga salaam كيجي بس كتبت. والد السلامي رجل من برلين ماشي لنا. برلين دربي. دربي ما بدي يسترجل إنه السلام يا ولد كذا. sidaas oo wada daawateen Yurub Genyo waxa ay u socotaa dalka Sweden oo ay waqti ku qaadan rabto ama ay show iyo ku soo qaban rabto fanaanada xidigeeda ma dhaco Yurub Genyo xidigeeda ma dhaco waayo fanaaniinta qaar markay ay waqtiga intaan la eeg fanka ku dhex jiraan ama ay fanka sidaani ugu gawaabsi noqdaan dadka wajigooda waa oo ka sii dhamaada sida inuu dhamaan ka wada warhayno oo aan ognahay laakiin waa fanaanada qura hal hees markay soo qaado saameynteeda ay yeelato heestaasi saameynteeda ay yeelataa Hodan Cabdiraxmaan iyo fanaanada bari waxa iskala tirsanaa jireen waad arkaysaa sida ay isku marxabaysiinayaan sida ay isku jecel yihiin sida ay waqti u wada qaadanayaan ay isugu faraxsan yihiin bari waxay ka wada tirsanaayeen xidigaha geeska oo ay barigii dambe ku soo biirtay Hodan Cabdiraxmaan oo kadib ka dhaxashay xaajigeeda mursal walow helitaankaasi oo keenay dood aad u fara badan iyo isqabqabsiyo xagga social media oo dadka qaar ay yiraahdeen waxa aad dhabarka ka toogatay ama aad ku sameysay waxyaabo aan qurux badnayn gabar walaasha ah waxay ula jeedaan qadar sinimo xilligaasi laakiin anigu qudayda xitaa maan taageersaneen dhacdada barigaasi dhacday laakiin mar walba aad fiiriso waxa adduunyada ka dhacay waa qadarta Hodan Cabdiraxmaan waxa ay lumisay isla waqtigaasi kadib
fanaaniin taageerayaal aad u fara badan iyo fanaaniin qaar oo ku kala qaybsamay labada dhinac u kala qaybsamay laakiin wax walba waxaan u daynaynaa qadarta Ilaahay oo hadda mararka qaar markii aan ka soo hadalno Hodan Cabdiraxmaan waxaad arkaysaa ama aad arki karaysaa in dadka qaar ay runtii ay aad uga soo horjeedaan oo ay commentiyada ay ka bixinayaan ay ku sheegayaan inaysan ahayn qof qurux badan ama qof loo baahan yahay in laga hadlo walow dadka qaarna ay taageersan yihiin waxaan rabaa marka in aan uga faa'iideysto fursadan mid iyo labo waxaad ogaadaa maalinta aad dhalanaysid oo caloosha hooyadaada ku jiro ayaa waxa la qoraa qadarta adduunyada wax walba oo dhacayaan horta iyada inay waqti xaadirkaasi arrinka dhacay oo qurux badnayn dhamaanteen aqliyan waa ka wada simannahay ma dadka taageersan ma kuwana taageersanayn aqli ahaan waa ka wada simannahay in dhacdada waqtigaasi dhacday aysan ahayn dhacdo qurux badan oo u qalantay inay waqtigaasi dhacdo laakiin markii ay dhacday kadib dadka waxa ay inta badan ka qeyraysiiyay waxa ay ahayd maadaama gacan qabashadii ugu weyneed iyo waxyaabihii ugu weynaa ay lahayd qadar sinimo inay soo baxo fanka Mursal Muuse oo aan fahmi karaynay xilligaas inuu fanka sidani u fududeyn oo waqtigan uu yahay oo fududeyn oo adkaa oo fanka adkaayo aad u adkaa haddana may u suurtagali lahayn inuu fankiisa sidaas dhow ugu qarxo sidaas darteed waqti ayay gelisay juhdi ayay gelisay dowladdeegaanka ayay wada joogi jireen Soomaalida iyo Itoobiya kadibna way adkeed iyada ayaana garab weyn ka geysatay inuu fankiisa soo baxo walow markii dambe ay u soo wada wareegeen Hargeysa oo la aasasay xidigihii geeska oo ay waqti dheer iyagana ay gelisay sida ay fankiisa u sii horumarin lahayd tan kale ee dadka ay uga soo horjeedeen Hodan waxa ay ahayd inay ciyaal haysay maanta ba ciyaal ay haysaa Hodan Cabdiraxmaan oo waa hooyo oo Mursal ciyaal ay isku leeyihiin waa ay isku qanacsan yihiin marka hadii ay shalay noloshaasi ay baabaaday siday doontaba ku baabaaday cid doontaba qaladka ha lahaato hadii ay shaltaasi baabaaday maanta ma qurux badno anagana inaan ka daba tagno oo teeda maanta ay ku nooshahay iyadana sidaas u baabaado fanaanada in ku filan oo dhibaato ah ama shaki ah ama waxyaabo qaar ah waa ay soo aragtay oo maanta wax badan ayay ka kororsatay dhibaatada waqtigaasi dhacday laakiin ma aha waqti wax laga qaadi karayay ama waqti wax laga qaban karayay maanta xaajigeeda aad bay u jeceshaa wayna isku qanacsan waxaan u leenahay marka asxaabta inta badan ku xiran social media gaar ahaan bahweynta sariicad in qalbiga la isku nagaadiyo qalbiga loo furo walaasheena si habi ah aan waxay kala kulanno markaasi ama wanaag ama wax kale ha noqotee aan ku taageerno wixii hore aan iskiilowno forget qalbigeena ka wada saarno sidaas ayaan jeclahay meeyda ayaan u diyaar garoobayaan fanaaniin badan oo xidigaha oo kala faaragsanay ayaa isku soo wada laabtay hees qurux badanna waa ay soo qaadeen waana u hambaliyeen doonaa waana u hambaliyeenna iminka waa sii horumarsanayna Soomaaliland hambali ayaan leenahay maalinta weyn ee qalbiyada ummadda Soomaaliland ku weyn in Ilaahay uga dhigo maalin khayr qabto in ay waxa ay jecel yihiin oo rajaada ay dunyada ka leeyihiin in Ilaahay u fududeeyo ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga rajaynaynaa dhamaantiina u hambaliyeeya una duceeya fanaanada ay Yurub geeyana aaditaankeeda ay Yurub aadayso wixii markaasi ay ka soo kordhaa kulay halkan ayaan ka wada wadaagi doonaa hadduu Ilaahay idmo dhamaantiin waxaan mar walbaba iyo meel walba aad ku sugan tihiin idin rajaynaya caafimaad qab cimri dheer iyo in ay qalbiyadiina noqdaan kuwa saafi ah oo xumo ka nadiifsan insha Allah ta'ala fiidiyogan aad u la gareeya sina share gareeya asxaab badan gaarsiiya si aynu u wada wadaagno samaanta inta aan muuqaalkan mid xigo ama ka duwan aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa dhamaantiinba fi amaanillah